anigoo oo yaqaali maxamuud guhaad ikraan tahliil faarax hooyadeed waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto oo walaalaheena oo na garab taagan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allah idin xifdiyo waxaan maanta shir jaraa'idkan aan u qabanay waxa waaye in maxaan ku iraahdaa mowqifkeeni oo meeshii taagan yahay أنا هو يقال محمود جهادي أب تهليل فرح إكران أبهت أنا قاعد ضلني محن كل هاي وح مانت أو كيس كاس أنكو بدلنا إننا مجرته وح أنك بيسنا إننا مجرته كيس كي ماشي سيو تاجني أنا قاعد ضلني وح أنكو بدلنا إننا ملها ماشي وتاجني هاي دعودي سيدي وفرنت هاي وح محن كل هاي ومد Soomaaliyeed وشكي كجلايو أو إلين مامدي يمسيجي وعامسين ma jirto lacag ay qaateen iyo kan ay qaateen ma jirto annaga waxa waaye waxaan taaganahay dambiilayaashii gabadheennii dhibaateeyey in aan cadaalad uga helno tiirkaas noola soo taago cadaalad haddii lagu helo ayaga maxaan ku iraahdaayay dhibki oo ay u geysteen aan ka salgaarno oon ka daba tagno meel aan uga soo herayno malkiiskiina sidii u taagan yahay taasaa ogaanaysin ummadda Soomaaliyeed oo walaalaheen oo na garab taagan midda kale hadday xil raadiyaan iyo hadday ka tagaan geed dheer iyo geed gaaban meeshay u fuulaan annaga waa daba taagana meel aan uga hareynana ma jirto qoys iyo qabiil iyo qolo qof nagu garab taagan ama nagu matala ma jiro annaga dhalnay Dr. Tahliil Faarax Axmed anigoo qaali maxamuud guhaad wax nagu matali kara ma jiro annaga taagan adeerkeeda taagan Xasan Faarax Axmed marka waxa waaye cadaaladii gabadheena meeshan u taagnaynaan u taaganaa ilaa yawmal hada mana ka hareyno waxaan ahay Ikraan Tahliil Faarax ee dadeed Fartuun Faarax Axmed maanta waxaan shirkan jaraa'id u qabanay inaan ummadda islaamka u sheegno kiiskii shalay meeshuu noo taagnaa inuu maantana noo taagan yahay oo wax gorgortana aanan ka galaynin intii annaga aan cabanaynay aan dhibaatada sheeganaynayna dadka dawladda sheeganayaan wax noo damqadaba aan ka weynay waxa jirta mar ra'iisul wasaaraha uu noo ballan qaaday kiiska Ikraan inuu Ilaahay dartiis iyo hortiis wax uga qabanayo سان أسوقينا ينكي مانتا ينكي من وين مسؤول هو oo ilaahay hortiis noogu dhaartay saan uga sugayna kiiska inuu wax nooga qabtana hadda meesha aragtu soo istaajiyay marka waxaan ummadda islaamka u sheegaynaa iyo Soomaalidii shalay la damqatay in kiiskaas wax nooga qabto aan wadankaas gudihiisa ka weynay maxkamadii aan shalay dacwada u gudbisanayna waxay sheegtay dacwada inayna qaadi karin aqabada haysta darteed oo aqabada hortaagayna ayna waliba dacwadaas ayna baarin marka anagu ma garanayna xeer ilaalinta warka meesha ay ka keentay iyada garanaysa maxkamadii aan dacwada u gudbinay ma ayna qaadin dacwada sida ay noo sheegeen marka insha Allah cadaalad horta Ilaahay agtiisa ay taala Ilaahay agtiisana ka sugaynaa laakiin waxaad ogaanaysaan inaan anaga wax diyaan Ikraan ka qaadanaynin aan horena uga qaadanin haddana ka qaadanaynin oo meeshii aan shalay aan taagnayn aan ka taaganahay madaxweyne Farmaajo raggii Ikraan lagu tabaayay inuu xil ku wada taxo ayaga dhan kulay xil ma celinaayo xasaanad wax ma celiso حقنا إله أنباء ولي أهمالهم بو إله نوصل دلاعين دونا معين حقنا قبل إن نلاقي جيرو حين قطنا مع الأنباء كهل دونا إن شاء الله مركا إن شاء الله أنت أصلا مد وشيجينا هدي إله إدمو رئيس وزراء يمدحوينها يعد قلب الدولة داس الشيء قطنا عد إن هل مالين إن نقدم قناح بنا وقواننا وأيدي عدينينا وحين لا شيء إن هو هاي بين أنباء هذه وحنا قلنا لقوا قنعناي مركا إن شاء الله عدالة إله كسوجينا waxaan nahay dulmanayaal xaqoodii la duusiyay ragii da'yarteena duufsaday darajada xilba darbi looga sii dhigay daa'imo ilaahow xaq ma duusihiyo cadaaladana deeqsi bismillaahir rahmaanir rahiim jawaab celin ku saabsan go'aan baariseedka xeer ilaaliye Buule Kamey uu ka aqriyay TV-ga afka dawladda ku hadla markii taariikhda ay ahayd 22ka bishii 11aad sanadkan ay ku jiraan 2021 qoyska muwaadin Ikraan Tahliil Faarax waxay halkan uga jawaabayaan war xaqiiqada ka fog oo ka soo baxay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida 22 bishii November sanadkan 2021 kaas oo ciwaankiisu ahaa baaris hordhac ah oo ku saabsanayd kiiska Ikraan Tahliil Faarax warbixin baariseedka oo xeer ilaaliyaha Buule Kamey ka sheegay warbaahinta waxay khilaafsan tahay habraacyada loo maro baarista faldambiyeedyada muwaadin Ikraan Tahliil Faarax waxa gurigeeda oo ku yaala xarunta hay'adda Niisa dhexdeeda ka qaaday baabuur uu leeyahay eedeysane
kulanajiis habeenkii ay taariikhdu ahayd 26 bisha juun 2021 markaas ayaana cid ugu wardambeysay. waxaa xusid mudan in bartamihii bishii July hooyo qaali maxamuud guhaad oo garabkayga midig fadhida iyo xubno qoyska ka mid ah ay kulan la yeesheen eedeysane Fahad Yaasiin oo xilligaas ahaa agaasimaha hay-adda NISA waxaana uu qabsaday muddo 2 maalin ah 2 maalin gudaheed in uu gabadha ku keeni doono taas oo caddeyn u ah in Ikraan ay ku maqan tahay gacanta hay-adda NISA. taariikhdu markay ahayd 24 bishii July 2021 hooyo qaali maxamuud guhaad ayaa dacwad ay u gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida. taariikhdu markay ahayd 7 bishii 9 September 2021 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay qabatay gal dacwadeed ay gudbiyeen qoyska reer Tahliil Faarax kaasoo eedeysanayaal ay ka ahaayeen dadka kale ah 1 Fahad Yaasiin Daahir 2 Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud oo ku magac dheer Yaasiin Farey 3 Cabdullaahi Kulan oo loo yaqaano Kulanajiis 4 Cabdiqani Dhiirane oo loo yaqaano Wadnaqabad. taariikhdu markay ahayd 2 bishii Sebtembar sanadka 2021 waxay warbaahinta ku hadashay afka dowladda lagu baahiyey qoraal ka soo baxay hay-adda NISA oo cinwaan looga dhigay tacsi kaasoo NISA ay ku sheegtay in Ikraan Tahliil ay dileen ururka Al-Shabaab. hase ahaatee wax ka yar 24 saac ayay Al-Shabaab ku beeniyeen ku lug lahaanshaha kiiska. xeer ilaalintu waxay si cad ugu sheegeen qoyska iyo qareenkaba inaysan u suurtoobin baarista kiiska sababo la xiriira in saraakiisha NISA ee eedeysanayaasha ka ah ay is-hortaag ku sameeyeen baaristii socotay iyaga oo caddeeyey in xaaladda taagani darteed aysan saamaxayn in baarista la sii wado. waxaa nasiib darro ah in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo horey u ballan qaaday in kiiskan si dhaba loo baari doono qoyskana ay heli doonaan cadaalad in uu tuhmanayaashii NISA ee loo haystay kiiskan inuu iyaga gacanta u geliyey isla kiiskii ay eedeysanayaasha ka ahaayeen sida ku cad bayaanka uu bixiyey ra-iisul wasaaraha 26 Oktoobar 2021 mar uu booqday taliska hay-adda NISA taas oo ay daba socotay warqad ka soo baxday NISA 3 bishii 11 waa November sanadkan 2021 oo uu qoray eedeysane Yaasiin Farey oo uu u diray xeeraaliye Buulakamey laftiisa kuna sheegtay in Yaasiin Farey uu wareejiyey galbaariseed oo isagu isku soo baaray. haddaba qoyska Ikraan Tahliil ma aqbalin warbixinta uu shaaciyey xeeraaliye Buulakamey mana ahan mid sharciga waafaqsan. xeeraaliyaha dembi kama baabi'in karo cid dembi leh mana laha awood uu ku xiro kiis ka furan maxkamad sharci ah. maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay noo caddaysay in dacwadda Ikraan Tahliil aan weli la qaadin sidaas darteedna kiiska weli wuxuu ka furan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida. waxaan xog ogaal ku haynaa in xeer ilaaliye Buulakamey uu hadlay kadib markii uu eedeysanay Yaasiin Farey baabuurkiisa ku qaaday kuna geeyay xarunta NISA kadibna muuqaal looga dhex duubay xarunta NISA isla maalinkii 21 November ee uu hadlay xeer ilaaliyaha. muuqaalkaas oo laga sii daayay warbaahinta afka dowladda ku hadasha sida la wada og yahayna waxa ujeedku ahaa in loo gogol xaaro kursiga xildhibaannimo ee uu eedeysanay Yaasiin Farey oo maalin kadib ugu safray magaalada Dhuusamareeb. tiirarka dowladnimada waxaa saldhig u ah cadaaladda. haddii cadaaladdu ay waayaan dadweynaha waxay ku qasbanaan doonaan inay gacmahooda ku raadsadaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin. xaq dadkii lahaa ay daba joogaan marna ma lumo. qoyska Ikraan Tahliil waxaa ka go'an cadaalad u helidda kiiskan wax kasta iyo waqti kasta oo ay ku qaadato.